madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo wafdi hogaaminayo oo isugu jiraan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta gaaray degmada buurxakab ee gobolka Baaya. Maamulka degmada, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa madaxweynaha halkaasi ku soo dhaweeyay. Soo dhaweyn kadib madaxweynaha waxa uu kulan la yeeshay maamulka degmada, saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada asigoona kala hadlay xaaladda deegaanka. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha dhagax dhigay goob la filayo in lagu dhiso garoon diyaaradeed oo yeelanayso degmada Buurxakab iyo sidoo kale xarun jaamacadeed. Dhagax dhiga kadib, wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdullaahi Xaaji Xasan ayaa bulshada ku dhaqan degmada Buurxakab waxa uu ka dalbaday inay kala shaqeeyaan dhismaha golaha deegaanka oo dhawaan degmada yeelan doonto. madi in kooraytay wasiir arrimaha gudaha iyo magacaabo safarka inta ku bilaaway kaale walaan ku bilaawna ma oga taariikhda buura kase iyo inay degmooyinka tan ku weyn asa inayo meeli ma hayus taariikh hoob la fado dhulkun la weydiyo inta la weydiyo. dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen ayaa asna ka hadlay booqashadiisa maanta degmada Buurxakab. tan amniga oo ka hadasheen iyo wacyigelinteeda iyo sida dadka loo gaarsiin lahaa ay u diyaar garoobi lahaayeen sidii lagu heli lahaa amni waaro oo nimankan ummadda kala qoqobay oo dadka dhibaatada ku haayo oo khawaarijta xal loogu heli lahaa howlgallada hadda diyaarka ah iyo operatiinkii phase 2 ahaa ee heshiiska caalamiga ah lagu galay dowladaha deriska ah ee dowladda federaalka ay ka ahaayeen annagana state ahaan inta nooga soo aaday aan diyaar u nahay in loo diyaar garoobo dadkan baabul iyo kacdoon gobolkaas fulinayana lala shaqeeyo garab istaago xog iyo xoolo iyo talaba intaba lagu biiriyo sidii degmadan Buurxakab loogu heli lahaa mashaariic sida degmooyinka kale ay u heleen muhiimna ah maadaama ay tahay degmada ugu weyn degmooyinka gobolka Baay ugu taariikhda dheer dad taariikhdii maxay ahayd ummadan ay lahayd digri mirflo u lahaa meesha asalka ahayd ay kasoo bilaabanaysay ay tahay dadkii ugu ilbaxsanaa ugu xadaarada fiicnaa oo abow elay ahaa uu degan yahay in loo helo mashaariic tiro badan oo horumarineed oo bulshada la gaarsiiyo oo tuulooyinka la gaarsiiyo oo degmooyinka la gaarsiiyo oo socoto 2024 iyo waaye fayskii saddexaad oo doorashadii taasoo ah in markaan awalkii hore odayaasha iska soo xulay ayagoo bulshadooda la tashanayo oo reer koonfur galbeed yaa dooranay golihii deegaanka sidii aad taqaaneen yaa seejo la dhigayaa golihii deegaankii iyo gudoomiyihii lagu soo dooranay sanad kadib haduu Ilaahay maanta dhagax dhiga waa jaamacadii degmada Buurxakab waxaana dhisi doona haduu Ilaahay yiraaho oo waqti badan gelin doono dowladda koonfur galbeed iyo shacabkeeda. waxaan u mahad celinaynaa wasiir Fawziyo ku deeqday dhulka bixisay laga dhisay jaamacadda ayadana aad iyo aad u mahadsan tahay. waa markii ugu horeysay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen uu booqasho ku tago degmada Buurxakab ee gobolka Baay tan iyo markii loo doortay xilka madaxtinimo. waxaana booqashadan la filayaa in waxyaabo badan ay ka bedesho degmada adeegyada bulshada oo aad ugu yar halkaasi. Shukri Ismaaciil Axmed, telefishinka caalamiga Universal, Baydhabo.